بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلو عن وناكسن داوديال waxaad ku soo dhawaataan xogihii ugu xasaasisanaa iyo wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray Soomaaliya waa maalinimo Sabtiya taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 3 bisha 4 Abriil sanadkuna waa 2022 qodobada aan idin hayo waxa kamid noqonaya shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe oo ka furmay xarunta Afisiyoni iyo qodobo xasaasi ah oo la filayo in shirkaasi looga hadlo wararkii ugu dambeeyay ee shirka ayaan idin hayaa taliska ciidanka xoogga dalka oo ka hadlay dagaal culus oo ka dhacay degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo al-shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda dagaalkaasi iyaga oo sidoo kale tilmaamay inay la wareegeen Awdhiigle iyo Bariire oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose maxaa ka jira in ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo 25 askari gaaraya lagu dilay dagaalka ka dhacay Awdhiigle diyaarad siday wafdi ka socday Imaaraadka Carabta oo lagu celiyay garoon diyaaradeed oo ku yaala gobolka Mudug ujeedka diyaaradaasi loo celiyay iyo dawladda oo war ka soo saartay waan idin hayaa qodobadaas iyo kuwa kale oo aan idin qarinayo ayaa saaxiibayaal daawan doontaan waqti wacan وهاجاك saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan hadii aan ku bilaabo magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa maanta ka furmay shir gaar ah oo markaasi ay u dhan yihiin madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada shirkaasi oo hordhac ah shirka wada tashiga ee doorashooyinka shirkan oo albaabada ay u xiran yihiin ayaa goordhow si rasmi ah uga bilowday teendhada Afisiyoni waxaana goobjoog ka ah madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ra'iisul wasaaraha xilka sii haya iyo sidoo kale madaxda dawlad goboleedyada oo ay qayb ka yihiin Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani oo muddooyinkii la soo dhaafay aad u diidanaa shirarka dawladda Soomaaliya ay soo qaban qaabiso ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka beesha caalamka oo garwadaanka ah dadaalada socda ayaa soo qaban qaabisay shirkan waxaana diiradda lagu saaraya ajandaha shirka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada gobolka Banaadirna markaasi uu qayb ka yahay kaas oo looga arinsanayo doorashada sidoo kale waxa kulankani lagu soo qaadayaa xalinta khilaafka u dhaxeeya dawladda iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada sida Puntland iyo Jubbaland ammaanka goobta uu shirka ka dhacay ayaa waxa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta ururka midowga Afrika loo yaqaan ee AMISOM si kastaba shirkan ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah isla markaana la isku mari la yahay hanaanka loo wajahayo doorashooyinka 2022 dagaalyahanada kooxda al-shabaab ayaa saakay waa barigii hore weeraro culus waxa ay ku qaadeen laba saldhig oo ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalooyinka Bariire iyo Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose dadka deegaanka ayaa sheegay in salaadii subax ee saakayto laga war helay dhawaqa qaraxyo culus iyo dagaal xoog leh oo xigay dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay al-shabaab ay weeraro dhowr jiha ah ay ku qaadeen deegaanka Bariire iyo sidoo kale degmada Awdhiigle oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose warbaahinta taageerta kooxda al-shabaab ayaa baahisay in al-shabaab ay cagta mariyeen laba saldhig oo markaasi weerarka ay ku qaadeen saakay waa barigii oo ku yaala degmada Awdhiigle iyo sidoo kale deegaanka Bariire oo ka wada tirsan Shabeellaha Hoose al-shabaab waxa sidoo kale ay sheegeen oo war rasmi ah oo ka soo baxay ay ku sheegeen in ciidamadooda ay markaasi si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta labada saldhig oo markaasi weerarka ku qaadeen saakay waa barigii weerarka Bariire ayay al-shabaab waxa ay sheegeen in ujeedka laga lahaa uu ahaa inay qabsadaan deegaankaasi halka weerarka Awdhiigle uu ahaa waxay ugu yeereen arbushaad wararka qaar ayaa sheegaya in al-shabaab ay la wareegeen deegaanka Bariire dhinaca kale ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo gurmad ah ayaa waxa la sheegay inay gaareen duleedka deegaanka Bariire oo al-shabaab saakay waa barigii ay markaasi dagaal kula wareegeen isla markaana ciidamada ay doonayaan in deegaankaasi ay dib u qabsadaan dhinaca kale saraakiisha dawladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay ka hortageen weerarada kaga yimid al-shabaab isla markaana qasaare xoogan ay gaarsiiyeen macadda qasaaraha rasmiga ah ee soo kala gaaray labada dhinac balse xaaladda ayaa weli ah mid aad u kacsan waxaana dhaqdhaqaaqyo laga dareemayaa gobolka Shabeellaha Hoose iyo sidoo kale degmada Awdhiigle oo weerar saakay waa barigii ay ku soo qaadeen ururka al-shabaab
dhinaca kale taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi oo la hadlay idaacadda ku hadasha codka ciidamada ayaa ka hadlay weeraro ku bilowday qaraxyo iyo dagaalo xigay oo saaka aroortii hore ka dhacay deegaanka Bariire iyo sidoo kale degmada Awdhiigle oo ka tirsan Shabeellaha Hoose. Biixi ayaa shaaciyay in ciidamada dowladda ay ka hortageen weeraro ay dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ku qaadeen saldhigyo ku yaala deegaankaasi iyo sidoo kale degmada Awdhiigle oo uu xusay in khasaare lixaad leh markaasi ay gaarsiiyeen raggii weerarka soo qaaday sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray in 45 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab lagu dilay dagaalada ka dhacay Bariire iyo Awdhiigle sidoo kalena tiro intaasi ka badan dhaawacyo ay gaarsiiyeen. taliyaha ciidanka dhulka ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in deegaanadii lagu dagaalamay ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan waxaana howlgallo ay ka wadaan ciidamada xoogga dalka qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan aagii saakay waa barigii lagu dagaalamay. warar ka madax bannaan Al-Shabaab iyo sidoo kale dowladda ayaa sheegaya in dagaalkii saakayto ka dhacay degmada Awdhiigle iyo sidoo kale deegaanka Bariire 25 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda halkaasi lagu dilay. sidoo kale dhaawacyo intaasi ka badan ayaa la sheegayaa oo markaasi waxyeello ay ka soo gaartay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in ay ka dambeysay diyaarad siday wafdi Imaaraad ah oo 30kii bishii Maarso loo diiday inay ka degto garoon ku yaala magaalada Garacad ee gobolka Mudug. wafdiga Imaaraadka ee laga hor istaagay booqashada Garacad ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay la socdeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland waxaana tan iyo markii dhacdadaasi ay dhacday ku gadaamnaa su'aalo ku saabsan sababta iyo cidda celisay diyaaraddaasi. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Salaad Omar ayaa xaqiijiyay in diyaaraddaasi ay dowladda Soomaaliya celisay sababta loo celiyeyna ay tahay mid amni oo lagu ilaalinayo badqabka duulimaadka sida uu yiri. Omar ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliya aysan ka warheenin in diyaaradda ay saarnaayeen wafdi Imaaraad ah balse ay go'aan ka qaateen kadib markii ay heleen macluumaad ku saabsan in aan la isku halleyn karin ammaanka garoonka Garacad. waxaan markhaati ka ahay shirkadda iyo sidoo kale ee diyaaradda rakaabka la socday in ay dareemayeen amni ahaan inaysan diyaaraddu ka degi karin garoonka Garacad. waana idinla wadaagi karaa sawirro garoonka laga soo qaaday ayuu yiri wasiir Omar. tallaabada ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya ayaa imaanaysa xilli ay xiisad xoogan kala dhaxayso Imaaraadka Carabta oo marar badan ay dowladda Soomaaliya ku eedeysay in faragelin ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya. maamulka Puntland ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in dana siyaasadeed ay uga faa'iideysanayaan la wareegidda maamulka hawada Soomaaliya xilli labada dhinac oo sidoo kale ka dhaxeeyo khilaaf ku saabsan qabashada doorashooyinka dalka. waa tahay saaxiibayaal guud ahaan waan eegantaa wararkii iyo xogihii ugu xasaasisanaa inaga soo gaaray Soomaaliya oo aad kala socoteen Bahda TV.